atariishadii qalqaaliyadda ahayd ee soo qarxisay qaabdarrada u qarsoon fanaanka isticmaalay 1,000 xabo oo saliidda carruurta ma cabbay ma ku ciyaaray mise cid buu u marin jiray allahu aclam raabarka rikaartiistaa iyo lamaantiisa oo reera lugooya ayaa ku soo caanamaalay ka ganacsiga daroogada kufsiga kala tuurka iyo musuqmaasuqa ilaa qudhoodu shirqool isu maleegeen maxkamadna qoorta isu geliyeen qalanjadan oo sheedda kala socotay qayaanada saaxiibkeedii hore ayaa diilinta ganaaxa ofsayd uga baxday kolkii uu damcay inuu dilo waana tan maanta xabsiga madow ku soo ogaatay caddayn iyo makhraantina horgeysay garsoorka dalka Maraykanka ninkan ayaa sababay in saamiyada saliidda carruurtu ay hoos u dhacaan heerkii ugu hooseeyey abid sida laga soo xigtay ganacsiyada caanka kuwa saliidan Slide Imprumium iyo Shell kuwaasoo ka cabanaya sumcad xumada uu soo jiiday fanaankani ninkan oo la jecel yahay heesihiisa hip hopka muddo ayuu soo ahaa mooryaan qarsoon oo maafiyanimada ku qaraabta kaasoo maal badan ka sameeyey boqortooyada gumaystaha madow oo uu daha gadaashiisa ka maamulayay dad badan oo caan ah ayuu daroogo ku daldalay kolkay mirqaameenna ka duubay muuqaallo anshaxumo ah wuxuu ku eedeysan yahay tacadiye galmo iyo rikaatooyin tirabeela fanaaniinta iyo faashiyoniistayaasha ka cabanaya ayaana isu soo taraya maalinba maalinta ka dambaysa in vitro fertilization IVF waa adeeg ilmo beeris ah oo aan weligeed laga hirgelin waddankeena Soomaaliya waxa markii ugu horeysay keentay xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududeynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo tani waa Kasi Fantura fanaan faashiyoniste iyo filim jilaacana oo u dhalatay waddanka Maraykanka taasoo caan ku noqotay heesteeda Me and You oo soo baxday sanadii 2006 iyadoo gashay kaalinka saddexaad ee boqolleyda Billboard Hot heestan ayaa noqotay mid laba qaraxday oo naadir ah korna u qaaday xirfadeeda fanaannimo taasoo ay ku barteen malaayiin qof oo dunida ku nool kolkii ay shaac bixeen heesaheeda hip hopka iyo boobka ee isku dhafka waxay heshiis rasmi professional la saxiixatay fanaanka lagu magacaabo Didi kaasoo waagi dambe ay jecel wadaag ahaayeen in muddo xiriirka Didi iyo Kasi Fantura waxa uu ahaa mowduuc aad loo xiiseeyo sanadihii la soo dhaafay kaasoo ku asteysnaa jecel danaysiya iyo muran laba geesooda fanaanka caanka ah Sean Combs loona yaqaan Didi iyo fanaanada Kasi Fantura ayaa in muddo lagu xamanayay inuu ka dhaxeeyo xiriir qarsoodi ah wuxuu si rasmi ah u soo shaac baxay xiriirkoodu sanadii 2012 waxayna wada noolaayeen muddo 10 sano ah inkastoo khilaafkooda iyo kala tagooda uu marar badan internetka dhex yimi haddana waxay xaflad baybay ah ku kala xargafurteen sanadii 2018 waaga wixii ka dambeeyayna waxa soo ifbaxay eedeymaha iyo dacwadaha dhanka xadgudubka ee atariishadani ay u soo jeedinayso fanaanka Didi fanaanka oo haatan liinta ku cabaya xabsi ku yaal waddanka Maraykanka ayaa loogu dhagan yahay eedeymo ku saabsan kufsi iyo musuqmaasuq noloshiisa madow ayaana sidii dabkayn galay ugu faaftay dunida waana sababta taageerayaashiisu ay u kala qaybsameen oo badankoodu ay ugu eedeynayaan inuu yahay mooryaan gaygay ah 11 qof ayaa ilaa iyo hadda ku soo eedeeyay tacadiye galmo intii u dhaxaysay sanadihii 1990 ilaa 2001 waxaana maxkamadda la horgeeyay muuqaallo iyo cadeymo muujinaya isagoo dumar ku xadgudbaya sida haweeneyda lagu magacaabo Delia Graves masiibose waxay dhacday markii ay ku maqraanti furtay boqoradiisii hore ee Kasi Fantura oo soo qarxisay dunidana u soo bandhigtay wajigiisa qarsoon iyo muuqaallo uu ka duubay isagoo iyada qudheeda ku xadgudbaya xaaskiisii hore oo 10 sano ay wada noolaayeen ayaa sheegtay inuu isticmaali jiray daroogo aad u fara badan dumarkana ku samayn jiray falal galmo oo anshaxumo ah ciidamada ammaanka waddanka Maraykanka oo u daatay guryaha fanaanka Didi uu ku leeyahay magaalooyinka Miami iyo Los Angeles bishii Maarso ayaa ka soo helay noocyo kala duwan oo daroogo ah hub iyo rasaas iyo in ka badan 1,000 caag oo saliidda carruurta ah tan iyo markii la xiray fanaanka caanka ee Didi cadeymaha laga helayo ayaa isu soo taraya telefishinka Maraykanka laga leeyahay ee CNN-ka ayaana baahiyay muuqaal ay kaamirooyinka qarsoon ka duubeen gabadhii ay horay saaxiibada u ahaayeen ee Kasi Fantura taasoo culayska ku sii badinaysa fanaankan walow isaga qudhiisu uu qirtay inuu tacadiye u geystay xaaskiisii hore 16 Sebteembar ee sanada 2024 ayay ahayd markii hotel ku yaal magaalada New York ee waddanka Maraykanka laga soo xiray fanaanka Didi isagoo loo haysto eedeymo ku saabsan tacadiye galmo iyo ka ganacsiga jirka aadamaha